waan toosay laakiin waxaan la kulmay caalamka hurdo dheer ku jira. waxaanan ogaaday in wax walba ay ku xidhan yihiin shay kale. aqoontu maskaxda ma daaliso, laakiin firfircooni la'aanta aqoontu way burburisaa maskaxda. maskaxduna ma aragto xaqiiqada ama runta haddii aanu jirin qalbi saliima ama fayow. markaad eegto sawirradan waxaad u malaynaysaa inay yihiin keliya sawirro uu sawiray sawirle farshaxana. laakiin haddii laguu sheegay inuu sawiray Da Vinci, waa inaad eegtaa oo u fiirsataa 2 jeer. sababta oo ah maaha keliya sawirro, balse waa sawirro xambaarsan fariimo iyo caqiidooyin. balse intaynaan wax kale isweydiin, waa kuma Da Vinci? dabcan ma aha nin artisti ah ama wax sawiro oo keliya. sidee ayuu nin qarnigii 15aad noolaa uu uga sii warrami karaa diyaaradaha, helikabtarrada iyo taangiyada militariga? waa maxayse xidhiidhka ka dhexeeya isaga iyo ururada qarsoodiga ah? balse waa maxay sirta qarsoon ee sawirada uu sawiro iyo xidhiidhka ay la leeyihiin lacagta Maraykanka, halka sirta ugu weyni aanay ahayn shakhsiyaadka ama dadka sawirka ka muuqda, balse ay tahay humaag noqodka sawirka? waxaanuna muuqaalkeena kaga hadlaynaa maanta qisada koodhkii Da Vinci iyo sirta caannimada sawirka Mona Lisa iyo cashadii u dambaysay. laakiinse labadaas wardad hoosta ka calaamadii, maskaxdana ku haya, sababtoo ah in badan ayay nagu soo noqnoqonayaan, waana halka maanta mawduuceennu daaran yahay. intaynaan mawduuca bilaabin, fadlan ha ilaawin inaad channelka Khibrad Maal subscribe tidhaahdo si ay dhiirigelin noogu noqoto, muuqaalkana like saar. waxay ahayd saacadu 3 habeenimo 15 bishii Abriil sanadkii 1452 miilaadiga, markaas oo Leonardo ku dhashay beer qiyaasii 3 kiiloomitir u jirta magaalada Vinci ee degmada Florence ee caasimadda gobolka Tuscana ee dalka Talyaaniga. laakiin waxa uu ahaa qaabku ku dhashay xidhiidh sharci darro ah oo ay sukeenay qoraan nootaayo, kaas oo ka mid ahaa dabaqadda hodanka ah. waana sir beer oo Da Vinci iyo haweeney ka tirsanay dabaqadda saboolka ah oo lagu magacaabo Catherine. isla sanadkaas Leonardo aabihii wuxuu guursaday gabadh ka dhalatay dabaqadda hodanka ah, waana Albera de Giovanni Amadori, yacni dhawqeeda Soomaali ahaan sidaas u mug noqonaya. dabeed wuxuu keenay gurigiisii ilmihiisii aan sharciga ahayn, iyadoo Leonardo uu ugu koray guriga xaaskii aabihii sidii ilmi la soo tuuray oo kale. manay ahayn noloshiisii carruurnimo mid degan oo nidaamsan. markii uu 10 jirsadayna waxa uu u guuray gurigii awowgii, halkaas oo uu ku qaatay waxbarashadiisii, iyadoo ahayd mid aan si nidaamsan ku soconin oo kala googo'aysay. waxaana gacanta ku hayay awowgii Antonio iyo adeerkii Francisco iyo wadaad diimeed lagu magacaabi jiray Piero. si kastaba ha ahaatee, waxa wadaadkaasi arkay hibadiisa sare ee qoraalka rogan, weliba kaasoo la mid ah qoraalka caadiga ah, bimacnaa in qoraalka si rogan u qoro, haddana la mid ahaa qoraalku markuu saxan yahay. iyadoo mawhibadaas ay noqon doonto mid ka mid ah alxidhaalihii ama sirtii ugu weyneed ee waqtigii loo yaqaanay casru nahda, ama waqtiguu bilaabmay horumarka Yurub ee maanta. kadib bartamihii qarnigii 15aad, Leonardo wuxuu ku biiray dugsiyadii Florence, kuwaas oo ah xarunta ugu weyn ee sayniska iyo farshaxanka ee Talyaaniga. wuxuuna helay oo ku bartay Florence cilmigii ugu fiicnaa ee lagu baranayay iyo sidoo kale weliba cilmigii farshaxanka, kaasoo markii hore uu hibo u lahaa. Leonardo waxa uu awooday inuu ka dhex kasbado boos aad u sarreeya bulshadii Talyaaniga. waxa uuna ahaa qof hadal yaqaana, lehna awood heer sare ah si uu wax ugu qanciyo cidduu doonayo. 20 jirkiisii waxa uu noqday mid u qalma kuna guulaystay inuu xubin ka noqdo ururkii fanaaniinta ee Qadis Looka ee Florence. waxaana la sheegay in Leonardo uu macallinkiisii Andrea del Furucchio uu la dhameeyay sawirkiisii fanad ee cajiibka ahaa ee baabtiiskii Masiixa. wuxuuna sawirkaasi tilmaamaya dhacdo ay aaminsan yihiin Kiristaanku. Leonardo waxa uu sanadihiisii dhalinyaronimada ku qaatay barashada cilmiga sayniska iyo barashada noocyada kala duwan ee cilmiga. kadib waxa uu noqday aqoon-yahan si fiican ugu wanaagsan xagga sawirka, injineernimada, dhirta, khariidadaha ama maabiska, iyo xisaabta. waxa uu dheeraa inuu ahaa geologist, muusikiste, farshaxan yaqaan iyo mid aqoon u leh naqshadaynta dhismayaasha. wuxuuna bartay cilmiga qalliinka iyo caafimaadka. sirta Da Vinci waxa ay soo bilaabatay heerkii ugu sarreeyayna ay gaadhay qarnigii 15aad ee waqtigii loo yaqaanay casru nahda, ama markay soo bilaabatay horumarka reer Yurub. kadib markii uu waqti raacay farsamooyin iyo qalab aan jirin waqtigiisii iyo inuu horumariyo arrimo ay muslimiintu kaga horreeyeen isaga.
wuxuuna aad u jeclaa duulista iyo inuu riyadan u bedelo xaqiiqo jirta. waxa uuna fikradda ka soo qaatay caalimkii muslimka ahaa ee Cabbaas ibnu Farnaas ee reer Andalus. caalimkaas oo dhigay ama aasaasay qoraalladii iyo farsamooyinkii injineernimo ee ugu horreeyay dhanka duulista, iyadoo la diraasaynay qaab abuurka shimbiraha, taas oo la mid ah iyaduna fikradda uu Da Vinci u raacay qoraalladiisa. laakiin taariikhahanadu waxay arrintan ku tilmaameen been iyo wax kama jiraan, balse waxaa loo nisbeeyaa ama loo tiriyaa in Da Vinci uu sii tadawuriyey ama sii horumariyey qoraalladii iyo ikhtiraacadii Cabbaas ibnu Farnaas ee duulista. waxaana uu suuro gashay Da Vinci inuu ikhtiraacay naqshadaynta diyaaradaha maanta loo yaqaano helikobteriska. waxaana isku badhixii ama isku dhafigay cilmiga farshaxanka ama sawirka, cilmiga injineerinka iyo xisaabaadka ka caawiyeen Da Vinci inuu casrigiisii uga sii horreeyo dhanka mustaqbalka. bartamihii qarnigii 15aad Cusmaaniyiintu waxay soo saareen madficii dagaal ee dunida ugu horreeyey, kaas oo isu dheelitirkii awoodaha u soo leexiyay dhanka muslimiinta. kadib markii uu Maxamed al-Faatix ku guulaystay inuu furto Qustandiiniya oo maanta loo yaqaano Istanbul, sidoo kalena uu gebi ahaanba meesha ka saaray boqortooyadii Bisantiyiinta uuna tirtiray. Da Vinci waxa uu damcay inuu ka faa'iidaysto naqshada madfaca muslimiinta uuna u sii horumariyo sidii gaadhi gaashaaban oo guurguuri kara. sidaa awgeed waxa uu naqshadeeyay baabuur gaashaaban oo jaaga soo socon kara, lehna dhowr madfac oo yaryar kuwaas oo dhaqdhaqaaqi kara xagal 360 digrii ah, welibana ku gaashaaman dabool xadiid ah oo loo adeegsanayo inay ka difaacaan weerarada madaafiicda. qorshahan uu sameeyey Da Vinci waxaa raacay sarkaalkii Ingiriiska ahaa ee Ernest Sionton markii uu sameynayay taangiga sanadkii 1914 una isticmaalay dagaalkii koowaad ee adduunka. Leonardo halkaas kuma joogsan, balse waxa kale oo uu ikhtiraacay suulka lagu quuso iyo tuumbooyinka lagu neefsado biyaha hoostooda. waxaanu hal abuuray in meelaha sare laga soo boodo iyadoo la adeegsanayo baarashuutka, kaasoo uu ku darsay cabirka xisaabaad ee dhererka iyo qotada ee baarashuutka, kaasoo qofka caadiga ah qaadi doona marka uu soo boodo. waana kii ugu horreeyay ee cabira xawaaraha dabaysha, horumariyana model ama naqshado saacado yaryar ah oo jeebka lagu qaadan karo, kuwaasoo bedelay saacadihii waaweynaa ee waagaas la adeegsan jiray. waxayna daraasadahaas ama cilmi baadhahaasi sababeen dabayaaqadii qarnigii 19aad bilowgii casriga tiknoolajiyadda. waxaana iyadana aan meesha ka maqnayn saamaynta cilmiga islaamka ku lahaa Yurub iyo culimadeedaba. waana mid cad oo muuqata tan iyo bilowgii qarnigii 14aad iyo ilaa maanta. taasina waxay si weyn uga muuqataa oo caddaynaysa maktabadda weyn ee Britain, taasoo ay yeelaan cilmi baadhis iyo daraasado badan ay culimmada muslimiintu ay lahaayeen. balse su-aasha ugu muhiimsan uguna weyn dukumentigeenan ayaa ah, waxaa Da Vinci ka dhigay mid caan ku ah sawir gacmeedadiisa oo keliya, iyadoo oo la ilaaway aqoontiisa iyo cilmiyadiisii waaweynaa ee kale. laakiinse jawaabtu waxaa ku jirta koodhiska Da Vinci laftigiisa uu isticmaalay, fariimihiisa qarsoon iyo xidhiidhka uu la leeyahay ururada sirta ah. markaas ayaynu uga fahanno fariimaha qarsoon ee ku jira sawirada Da Vinci, waa inay marka hore barana marjiciisa diineed, caqiideed iyo taageeradiisa fikradeed iyo kooxeedba. marka hore Leonardo waa masiixi kaatoolig ah, aaminsanna fikirka loo yaqaan markaynu carabi ku tilmaano qunuusi. qunuusiyaduna waa fikir qadiimi ah oo ku salaysan fikrado falsafadeed oo diin iyo kuwa shirkiyadba ah. waxayna Soomaali kelmadan ku noqonaysaa midabka aqoonta ama garashada, waana caqiido ku dhisan cilmi baadhisaha. caqiidadani waxay leedahay laamo badan kuwaasoo intooda badan ku lug leh gaalnimo iyo shirki, waxaana aaminsan ururo badan oo qarsoodi ah oo daafaha adduunka ah. waxaa lagu tilmaamaa qoraaga Mareykanka ah ee Dan Brown oo ah qoraaga buugga caanka ah ee The Da Vinci Code inuu yahay qofkii ugu horreeyay ee iftiimiyey runta shaqooyinkii Da Vinci iyo caqiidadan qunuusiyadda iyo sirta ah inay aad u weynayso wixii la xidhiidha dhadignimada. innagoo qodobkaa dib u sheegayna, wuxuuna kitaabkiisa ku sheegay in Injiil loo bedelay dhowr nusqo oo kala duwan, kuwaas oo u adeegaya dano siyaasadeed iyo caqiidooyinka qarsoon ee qunuusiyadda. wuxuuna sidoo kale caddeeyay xaqiiqada ururka walaalaha Sion, kaasoo lagu aasaasay waddanka Faransiiska sanadkii 1956. Sionna waa magac been ah oo qarsoon ayna isticmaalaan qaar ka mid ah ururada qarsoon ee sirta ah, kuwaasoo aasaaskoodii ugu horreeyay uu ka soo bilaabmay boqortooyadii Qudus ee waqtigii dagaaladii Saliibiyiinta iyo Muslimiinta sanadkii 1990 miilaadiga.
ayna ururadaas budrig u ahaayeen fartooladii macbadka kuwaasoo ahaa aasaasiyaashii maasuuniyadda sida kooxda komentiyada Pierre Ballantyre oo ahaa xogayaha gobol ee ururka walaalaha Sion ee Faransiiska kaas oo ku xaqiijiyay in Leonardo da Vinci uu xubin ka ahaa ururka sirta ah ee ugu saameynta badan adduunka maanta sanadii 1495 ilaa 1498 Leonardo wuxuu sameeyay ama sawirkiisa cashadii ugu dambeysay kaas oo ka mid ah acmaashiisa ama sawiradiisa ugu caansan uguna dahsoonida badan sawir gacmeedkan waxaa loo sameeyay xarunta Dominicanka ee kiniisadda Santa Maria degli Grazia ee magaalada Milano ee waddanka Talyaaniga Dominicankuna waa urur wadaadeed Catholic ah wuxuuna soo bandhigayaa sawirkan sida ay aaminsan yihiin Kiristaanku muuqaal cajiib ah oo lagu sheegay 4 Injiil taasoo ah inuu Masiixu oo ay uga jeedaan Nabi Ciise uu isugu yeedhay 12 xawaari isagoo uu sheegay waqtigii cashadiisii ugu dambeysay in mid ka mid ah iyaga uu khiyaami doono isagoo uga jeeda tilmaamayana Yahuuda wuxuuna da Vinci muujiyay in wejiyada xawaariyiinta ay ka muuqatay argagaxyo hawareer kadib markii la ogaaday inuu miiska cashada kula sugan yahay mid khaa'ina iyadoo sawir gacmeedku uu ekaa mid sheegaya oo tilmaamaya isla dhacdadan inkasta oo maskax badni ku dheehan tahay muuqaalka uu da Vinci sawiray haddana sawir gacmeedkan dunida ka yaabaya ma aha sawir kaliya balse waa mid ay ka buuxaan dahsooniyo siro badan taas oo yar kadib isku dayi doono inaynu sheegno sawirkan cashadii ugu dambeysay wuxuu leeyahay nuqullo badan oo ka buuxa madxafyada caalamka laakiin asalka ah waa sawir gacmeed aad u weyn oo suran gidaarka qolka cuntada ee kaniisadda Santa Maria dhammaan nuqullada kale ee mataaxifta yaalla waxay gaar leeyihiin iftiin goobaha ku wareegsan madaxa Nabi Ciise iyo xawaariyiinta laakiinse nuqulka asalka ah ee Da Vinci wuxuu ahaa nuqulka kaliya ee aanu iftiinkaas goobadahi aanu raacsanayn iyadoo goobadaas ay calaamad u tahay waarista sirta ku duugan in ay tahay calaamad cad oo uu Da Vinci ku tilmaamayo in Masiixu ama Nabi Ciise aanu Ilaahay ahayn balse uu yahay bashar waxaa jirta fariin kale oo sir ah taasoo tilmaamaysa tirooyin iyo dhacdooyin wuxuuna Da Vinci u ahmiyad gooni ah siin jiray lambarka 3 inta badan sawiradiisa waxaana sawir gacmeedkan ku arkaynaa inuu 3 daaqadood ku sawiray gadaasha dambe ee madaxa Masiixa wuxuuna sidoo kale u qaybiyay 12 xawaari koox kastaana waxay ka kooban tahay 3 qof ujeedaduna waa inuu ku shabahay 12 burji ee samada kuwaas oo tiradoodu tahay 12 3 u qaybsan burjina waa dariiqa ay marto qorraxdu waana 12 oo ay marba mid degto sanadkii mid ka mid ah siraha yaabka leh ee ku jira sawir gacmeedkan waxaa ka mid ah inuu sawirka ka muuqdo Leonardo laftigiisa kaasoo sawiray sawirkan laftigiisa taariikhyahanada Talyaaniga waxay aaminsan yihiin inuu rabo inuu isku muujiyo sawirka iyadoo wejigiisa cadha ka muuqata sabab la xiriira arrimo caqiido ama diimeed si aynu taas u fahanno waa inaan marka hore eegno sawirada kale ee uu sawiray bilowgii qarnigii 16aad Da Vinci waxa uu dhameeyay sawirkiisa Salvatore Monti taasoo micnaheedu tahay badbaadiyaha adduunka waana sawir faneed uu ku sheegay inuu yahay Nabi Ciise iyadoo gacantiisa midigna uu ku tilmaamayo calaamadda nimcada gacantiisa bidixna uu ku hayo kubad shafaaf ama wax laga dhex arki karo ayna ku yeelaan 3 xidigood waxaanuna mar kale arkaynaa inuu adeegsanayo lambarka 3 kaas oo ah lambar muqaddas ah oo ku jira diinta Kiristaanka sidoo kale kuna jira sawirada maasuuniyadda waxaanuna arkaynaa inay ka dhex muuqato kubadda sida qaabka xarafka V oo kale laakiin arrinka shakiga leh waa tilmaanta 2 farood taas oo loo yaqaan calaamadda nimcada calaamadaas oo u dhiganta wanaag farta ku sawiran sawirka Baphomet taas oo tilmaamaysa shaydaanka ay aaminsan yihiin ururada sirta ah ee qarsooni taasina waxay ahayd kadib aynu ogaanay in sawiradu ay isku xidhan yihiin aanu dhaqaaqna sawirka caanka ah ee Mona Lisa ma aha oo kaliya sawirka cabqariga casrigii nahdada horaantii qarnigii 16aad laakiin waa sawirro ay siro badan ku duugan yihiin laguna soo ururiyay hal goob jaleecada hore ee sawirka waxaynu arkaynaa in la sawiro iyada oo aan lahayn suuni iyo baalasha indhaha tanna waa mid ku talagal ah looguna talagalay in la qariyo la iskuna barxo dareenka iyo mashaacirta marna waxaad u arkaysaa inay murugaysan tahay marna waxaad u arkaysaa inay faraxsan tahay laakiinse dhammaan xaaladahaas waxay muujinayaan inay ku duugan yihiin khiyaamooyin badani
waxaana tan daa ka qaaday kombiyuutar lagu eego dareenka bini'aadamka ee sawirrada. Da Vinci markii uu isku sawiray cashadii ugu dambeysay wuxuu isu muujiyey isagoo cadhaysan. Sawirkan Mona Lisana waa la mid. xaqiiqdii cidda la aaminsan yahay inuu sawirkan yahay waa Lisa Gherardini, waana xaaska mid ka mid ah qoyskii caanka ahaa ee Gherardini ee deganaa Florence. wuxuuna Da Vinci sawiray kadib codsi ninkeeda kaga yimi. laakiin arrinka farshaxanka leh waa inuu Leonardo uu sawiray si isku dhaf ah ka kooban iyada sawirka Nabi Ciise oo siday aaminsan yihiin, iyo sawirka Maryam al-Magdaliya iyaduna waa haweeney aaminsan yihiin Kiristaanku inay ka mid ahayd ardaydii Nabi Ciise, iyo sidoo kale sawirka Leonardo. Da Vinci waxa uu rabay inuu u sawiro sawirkiisan dambe naqshad gaar ah oo aan cid uga horreysay aanay jirin, taasoo uu ku soo koobay inta badan caqiidooyinkiisa diineed. wuxuuna ka dhigay xaglaha wejiga qaar u dhigma oo ku habboon isaga wejigiisa, bimacnaa u eeg isaga wejigiisa. isla markaas haddana Da Vinci wuxuu isku daray sawirka Lisa iyo sawirka Yuuxana al-Macmadaan si uu uga soo dhex saaray sawir dhadig ah balse shakli lab leh si uu isugu barxo labadaba, maadaama lagu yaqaanay inuu u arki jiray quruxda lab iyo dhadig inuu isku barxo. aynuna halkaa u yara noqonne. Yuuxana al-Macmadaan waa nebi Yaxye, waxayna aaminsan yihiin inuu ku sii bushaaraynayay nebinimada Nabi Ciise iyonu sidoo kale ka mid ahaa ardayda Nabi Ciise. wayna aaminsan yihiin sidoo kale sidaynu innaguna u aaminsannahay inuu ahaa nebi Ilaahay soo diray. aynu ku joogsana halkaas aynuna u soo laabanno sawirka Baphomet, shaydaanka ururada qarsoon. waxa kale oo aynu arkanaa in loo sawiray muuqaal jidh dhadig balse haddana leh muuqaal lab ah, taasoo ah inuu mar labaad, mar saddexaad iyo mar afaraad Da Vinci uu isku xidhay sawiradiisa iyo caqiidadiisa qarsoodiga ah. wuxuuna xitaa u nashqadeeyey sawirkiisa si waafaqsan habka saddex xagalka ahna calaamad ay adeegsadaan masooniyaddu. haddaynu ku sii soconno wuxuu adeegsaday sawirkiisa Mona Lisa fanka arag siridda markuu sawiray labadeeda indhood. haddii aad eegto oo aad madaxaaga u dhaqaajiso bidix ama bidig waxaad arkaysaa inay adiga soo eegayaan. waana astaan kale oo cad, waana isha wax walba arkaysa si joogto ahna wax walba ula socota. waana astaan qadiimi oo ay adeegsadaan ururada qarsooni. Da Vinci wuxuu uga tegay sawirka Mona Lisa siro kale oo ku qarsoon jiilasha soo socda. sirahani waxay ku yaallaan gadaasha ama dhanka dambe ee sawir gacmeedkan, halkaas oo uu ku sawiray buuro aan dhammaystirnayn shakligooda sida inay sawirka weli badhadhay oo aanu dhammaystirnayn. arrinkanina wuxuu furayaa albaab kale oo qarsoon si aynu si saxan ugu eegno xaqiiqada dhammaan sawirradiisa. laakiin aynu u eegno habka loo yaqaan dhowaan aragga ama overlapping perspective, waana hab loo eego wixii sawir gacmada si loo ogaado halxidhaalaha ku duugan. ma xasuusataa markaanu ku soo sheeganay dokumentigeena bilowgiisa in Da Vinci uu lahaa hiwaayad ama mawhibada ah inuu qoraalka isagoo maqluuba ama rogan uu qori jiray. waxayna u muuqataa in arrintani wax badan uu ka sii kororsaday markii uu weynaaday, uuna ku daray sawir gacmeedadiisa kuwa ugu muhiimsan. haddii aynu soo qaadana sawirradiisa aynuna si bilcagsi ah ugu baraxno sawirka kaa la mid ah, aynuna ku eegno faladhaha loo yaqaan al-ashiica taxta alxamraa, waxa aynu ka dhex arkaynaa calaamadaha qaar ka mid ah ururada sirta ah. si taxadar lehna u daawo muuqaalkan yar ee kooban si aad u fahanto waxaynu ka hadlayno.
waxa kale oo jira sawirro qariib ah oo ka soo muuqanaya marka aynu si iska horkeen ama cagsi ah isaga horkeenno weliba si dhinaca sawirka Yuuxana Almacmadaan. waxaadna isweydiin kartaa maxaa ka dhalan kara haddii aynu arrintaas ku dabaqno sawirka Mona Lisa. markaynu si cagsi ah isaga horkeenno sawirka isagoo laba qaybood aynuna isku badhaxno waxaynu arkaynaa in marka labada weji sinmaan ay labadooda indhood isku darsamayaan ayna ka soo dhex baxayso hal il si ay u sameeyaan astaantan. la yaab maaha hadda in adduunku weliba ururada qarsoodiga ahi ay ahmiyad gooniya siiyaan Da Vinci, gaar ahaan weliba isha ku taalla haramka ku sawiran lacagta Mareykanka wuxuu waafaqsan yahay lana mid yahay isha Mona Lisa. waxaanuna macluumaadka si qoto dheer uga helaynaa markaynu si fiican u baadhno taariikhda Da Vinci iyo xilligii casru nahda iyo aasaasidii ururka fardoolada macbadka ee ahaa kuwii aasaasay ururka Maasoniyadda. weliba iyadoo fariimaha qarsoon iyo sawirradan iska soo horjeeda si qoto dheer loogu dabaqay dhammaan qaybaha lacagta Mareykanka. Da Vinci waa cabqariga maanta dunida looga dambeeyo sawir gacmeedada xambaarsan fariimaha qarsoon kuwaasoo qarinaya fariimo liddi ku ah waxay muujinayaan. gabagabadii Leonardo wuxuu u dhintay dhiig kaga furmay dhanka maskaxda 2 bishii May sanadkii 1519 miilaadiga. sanadkii 2019 Talyaanigu wuxuu ku magacaabay sanadkii Leonardo sababtoo ah waxay waafaqsanayd xuska sanad guuradii 500aad ee dhimashadiisa. intaas ayuuna ku egahay mawduuceenu. hana ilaawin inaad channelka subscribe tidhaahdo.